salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar tv daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. dagaalada ka socda dalka suudaan ayaa hadda la tibaaxaya inay gacanta sare leeyihiin ama ay goobaha dagaalka ku tugtugroon yihiin fallaagada rsf ee uu horquwaaxiyo ninka la yidhaahdo xamdaan doogle. wararka naga soo gaadhaya magaalooyinka khartuum, undurmaan iyo weliba boor suudaan ayaa shaaca ka qaadaya inay goobo badan oo meelahaasi ka mid ah gebi ahaanba ay la wareegeen maleeshiyada rsf. waxaa la sheegayaa inay kaladhigii u dambeeyey dhul taagle ma hoobiyeen fallaagadaasi. wararka ayaa tibaaxaya inay haatan waagii baryaa fallaagadaasi ku durkayaan goobo hor leh. sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya inay rsf dharaarihii u dambeeyey ay qabsanaysay hub iyo saanad mar leh, iyagoo la arkayay weerar ay kooxahaasi ku ekeeyeen deegaano aan tahan ka dheerayn magaalada caasimadda ee khartuum, oo ay kula wareegeen wax ka badan 70 gaadhi oo kuwa dagaalka ah iyo weliba maxaabiis gaadhaya ilaa dhowr boqol oo qof ay gebi ahaanba isku ballaadhiyeen. guud ahaanba waxaa la soo warinayaa in maleeshiyada uu hormuuteeyo xamdaan doogle ay isku ballaadhinayaan guud ahaanba dalka suudaan, iyagoo meelo badan oo dalkaasi ka midana haatan la wareegay. wararka ayaa sheegaya in dagaaladii muddooyinkii u dambeeyey dalkaasi ka heelimaasayay ay u muuqdaan kuwo lagu kala calaf qaaday islamarkaana lagu muquuniyey ciidamada ninka la yidhaahdo cabdifitaax al burhaan, oo haatan meelo badan oo kamakacdo ah oo dalkaasi ka mida lagaga awood badnaaday, halka ay sidoo kalena jiraan goobo ay weli ciidamada al burhaan gawdiidaan ama ay rundudaan oo aan baal lagaga goynin. dadyowga isu tegaya sheegtay qaramada midoobay oo arrintaasi go'aano degdega ka soo saaray ayaa labada dhinacba si ba'an ugu canaantay inay yihiin kuwo aan dan iyo heello toonna ka lahayn bulshada reer suudaan iyo guud ahaanba dalkaasi. waxay ku eedeeyeen labada colba inay iska dhagamareen baaqyadii tirabeelka ah ee nabadeed ee ka soo yeedhayay qaramada midoobay iyo weliba dhammaanba dalalka carreedeg. ugu dambayntii dadyowga isu tegay ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay xamdaan doogle iyo al burhaan inay joojiyaan dabka iyo baaruudda ay isu nacayaan iyo dagaalada ay ka wadaan gudaha dalka suudaan, sidoo kalena ay wadahadal iyo is-afgarad ku soo idleeyaan ishaynta dhiigga badani ku daatay ee muddooyinkii u dambeeyey dhexdooda ka taagnayd. si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegayaa inaanay muuqan sansaan nabadeed oo beryahan dalkaasi ka hirgelaysa iyo qorshe ay xabad joojin ku samaynayaan dhinacyada iska soo horjeeda, iyagoo ay labada nin ee dalkaasi ku dirirayaana iminka warmaha isu siilisanayaan ama uu mid kastaaba xoojinayo halgaadada iyo tumaati karoonta uu kan kale kala ayaansanayo, iyadoo sidoo kale aanu gabar ka malaasnayn wixii ka durfaan dhabeeyey gebi ahaanba dalka suudaan iyo cawaankiisa. wararka iyaguna ka imanaya dalka sweden ayaa sheegaya in ninkii dhowaan qarafka sudhay kitaabka eebe qur-aanka kariimka uu haatan carreede ka yaahinayo goob guri gelgelin iyo geed qariya oo uu ku dhunto. ninkan oo magaciisa lagu sheegay salmaan muniim ayaa la bitinayaa inay iminka dhirtu u sanqadhayso oo ay hareeraha bela ka raacday. waxaa la bitinayaa inuu gebi ahaanba ninkaasi diiday jiif iyo joogba. wararka ayaa bitinayaa inay ninkan dabagurayaan kooxo muslimiin ah oo teer iyo dharaartii uu kitaabka qur-aanka oomaariyey raad guraayey, kuwaasoo uu ka mari waayey bartamaha magaalada uu ku noola ee stockholm ee xarunta dalka sweden. ninkan habaarka iyo haydaarada qaba oo ku aayooda sida tan iyo dalka carbeed ee ciraaq ayaa la sheegayaa inuu xukuumadda sweden ka duraantay inay u samayso ilaalo adag oo gaar dab leh ka qabata naftiisa, islamarkaana ka meeriya dadkan daba jabacsanaya, gaar ahaanna qolyo aan cidi la arag oo meel daran iska tusay. wararka qaar ayaa sheegaya inuu qudha kula eertay meelaha sowsowyada ah ee aan cidina ka agdhoweyn ee ku yaala magaalada stockholm. docda kale iyaguna qaar ka mid ah dalalka carreede gaar ahaana bugaanbugta reer bagoox ayaa la arkayay iyaga oo si daran u nacdiiraya ninkan faraha lagaga gubtay ee ducaduceeyey arrimihii aan loo dhowaan jirin, iyagoo dowladda sweden ku waaniyey inay gebi ahaanba joojiso falalka daandaansiga ah ee dhalaa noolba dalkeeda laga soo sheegayo. dowladda ciraaq oo uu ninkaasi ku aayoodo ayaa iyaduna hore gabal looga caddaysay inay geed dheer iyo mid gaabanba u kori doonto sidii ninkaas labadible loogu xidhi lahaa, isla jeerkaasna loogu keeni lahaa tolkii iyo dalka ciraaq si loo soo joojiyo meelaha garta lagu qaada ee ku yaala magaalada xarunta ah ee dalka ciraaq ee baqhdaad. salmaan muniim oo ah axad dayre iyo dibadmeerka ah dalka ciraaq ayaa la ogaa inuu dharaartii ciideed dab iyo kabriid ku dhajiyey kitaabka barakada leh ee qur-aanka kariimka, isagoo markaasi wax baas iyo xumaan uga gol lahaa amaba u toogahayay inuu kaga gadoodsiiyo, sidoo kalena uu kaga cadhaysiiyo dadka islaameed ee dalkaasi ku dhaqan. weli halkaad nagala socotaan waa taar tv iyo maxkamadda sare ee somalilan ayaa iska xulubtay, sidoo kalena iska majiirtay inay faraha la gasho ama ay gacmagacmayso duraamasho uga timi guddida doorashooyinka somalilan,
kuwaasi oo ka dalbaday inay go'aan ka soo gaadho hadba ta soo horreynaysa labada doorasho ee cabuudha madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda. maxkamadda sare ee Somalilan ayaa gebi ahaanba ku gacan saydhay inay wax ku darsato arrimaha doorashada Somalilan. qoraal ay soo saartay oo lasoo huluuqsiiyey baraha bulshada ayaa lagu sheegay in horeba loo eedeynayay geedka karta qaada ee Somalilan maadaama oo la daba qaaday inay dalka ka abuureen ismariwaa taagtiisa iyo kala tahanto ku yimi xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi. guddida ugu sareysa maxkamadda sare ee Somalilan waxay u soo jeediyeen guddida doorashooyinka Somalilan inaanay la soo gelin sumbulaha iyo wacdaraha ay la koodhaadhayaan. maxkamadda sare ee Somalilan ayaa intaa ku dartay in guddida doorashooyinka Somalilan la weliyo howlaha doorashooyinka dalka iyo weliba sida ay u kala horeeyaan. waxay bitisay inaanay iyadu shuqul iyo shaqo midna ku lahayn arrimahan ay la soo doonteen guddida doorashooyinka Somalilan, kuwaasoo ay indhawaalaba ka qaylinayeen xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada madaxa bannaan ee Somalilan. maxkamadda sare ee Somalilan ayaa sheegtay in go'aanka gaadhista arrimaha doorashooyinka dalka loo daba fadhiisto guddidan eedka cararka islamarkaana aan iyaga lagaga daba dhufan karin. maxkamadda sare ee Somalilan ayaa sidoo kale ku tidhi guddida doorashooyinka Somalilan loogow lagu miran fadhiye. in la wada jirayba maxkamadda sare ee Somalilan ayaa qaadatay ama u dhaga nuglaatay dardaar werintii maalmahanba ka soo yeedhaysay xisbiyada mucaaradka ee Somalilan iyo weliba madaxda ururada siyaasadda. isaguna wasiirka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Kaahin Axmed ayaa ku dhawaaqay in laascaanood laga taagay calalkii madooba ee ay baadisocda u lahaayeen nimanka madaxa duubta ee uu ka mid yahay Cabdi Madoobe. wuxuu sheegay in wax hadba laga taago ceelka laascaanood calankii qaatumo oo mar la sulo kii Puntland oo uu marka babado kii Soomaaliya ugu dambeyntii iminka laga qotomiyey kii aynu isla naqaanay. wuxuu sheegay inay jamhuuriyadda Somalilan hore u sii ogeyd inay laascaanood ka soo jiijii leedahay taas iyo weliba mid ka daran. maxamed Kaahin Axmed ayaa tibaaxay in la wada arkayay wixii habeenkii xalay laga soo madoobeeyey taaladii yarayd ee ay soo tubi jireen duulka huwan la yidhi. dhinaca kale maxamed Kaahin Axmed ayaa isla soo jacfiiriyey inaanay gebi ahaanba dowladda Soomaaliya ku garab siinin oo ku jirin oo ku tashan inay hiil taarato Somalilan islamarkaana ay ka barbar dagaalanto ama ay ku difaacdo af iyo aadin. wuxuu sheegay inuu arkayay teer iyo intii uu bilaabmay dagaalka magaalada laascaanood duulka la yidhi huwan oo ku qalaadubaya waxaa Somalilan dagaalka laascaanood kula jira ama garab iyo gaashaan siinaya dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. maxamed Kaahin Axmed ayaa damuuniyey inaanay iyagu arrintaasi ka haynin wax dooc iyo dareen ah haddii laga tegi waayana ay iska tahay cabsi baqdin buyuur iyo babiso la soo darisay qolyahan isugu qayla dirtay gobolka Sool sidoo kalena ka alaaqaysanaya gudaha ceelka laascaanood. maxamed Kaahin Axmed ayaa ku yidhi dalka huwanta la magac baxay waadna tuuntee walaynaga tahay. lama fara badan baa eriyada lagu sitay waxa weeye calankani waa kii Soomaaliya, kani waa kii Puntland, kani waa kii SSC. waxa waa laga wada saaray imika khadka asaladii cidii dagaalka waday calankeedii ayaa taalooyinkii magaalada lagu sameeyay moobiladiina ka wada hadlaysaan calankii madooba ee barbar kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somalilan ayaa digniin u diray kooxaha argagixisada ee ku sugan gudaha magaalada laascaanood isagoo shaaca ka qaaday in dhowaan halkaasi laga xalarin doono sidoo kalena ay ciidamada Somalilan gebi ahaanba gobolka Sool qabsan doonaan gaar ahaanna magaalada laascaanood iyagoo ka martiri doona huwanta dheriga iyo dhiishaba dhigatay. ugu dambeyntii wasiir Kaahin ayaa ka dhawaajiyey in ciidamada Somalilan ka niib keeni doonaan nabadgelyada magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool islamarkaana ay sugi doonaan qaydadka ay la wadaagto Soomaaliya. intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. assalaamu calaykum anigoo Aamino Daroor waxaan la cadilanahay labadaan nin oo agoona oo xanuunsanayay 7 sano dhakhaatiirna aanan gaarsiin wixii aanu haysanayna ay naga dhamaadeen socod yar iyo meel aan dhakhtar weyn lahayn iminkana iyagoo bilaa xooga iyo anigii oo gaabiyay oo indhii ka gaabiyay iyo itaalkiiba waxaan doonayaa in laygu caawiyo dadka muslimiinta ah meel ay joogaanba in laygu caawiyo waxaan ku gaarsiiyo Itoobiya. wassalaamu calaykum. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaalayaal ninkaas oo nin xanuunsanaya waxaan haynay 4 sanadood 4 sanadood anagoo ah cilaajka Daarul Sunna waxa weeye ilaahay dartii baan u haynay ehel iyo walaala waxa weeyaan male nin curyaana ayay walaalayihiin islaantaas ayaa dhashay islaantaasna waa islaan reer miyiga marna miibay ka soo oradaa waxa weeyaan marna dee waxa weeyaan wixii naftiisa uu cunaya ayay u keentaa marka waxa weeyaan dee halkanna wax dawaa ah ugu jirto oo iminka ugu soo kordhay oo isbedelo aan ku aragnay ma jirna 4 sanadood ilaahay dartii baan u haynay waxa weeyaan marka walaalayaal ilaahay dartii u soo caawiya.